wararka ka imaanaya ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhaceen dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo qowmiyadda Cafarta. dagaalkan ayaa yimid kadib markii qowmiyadda Cafartu la sheegay in ay ku soo xadgudbeen xadka dhul ay Soomaalidu lahaayeen kaasoo isku bedelay dagaal la soo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Goobjoogayaal ayaa sheegay in 4 ruux oo Soomaali ay ku dhaawacmeen halka tiro kalena ay ku dhinteen. dhinaca kale qowmiyadda Cafarta ayaa iyana waxa la sheegay in ay kaga dhinteen tiro inta ka badan. waxa weli kacsan xaaladda goobtii lagu dagaalamay iyadoo ay hor fadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay ee labada dhinac. dhanka kale odayaasha deegaanka oo ku baxay dagaalka ayaa ka dalbaday labada dhinac inay dagaalka joojiyaan isla markaasina maleeshiyaadka weli hor fadhiya la kala qaado. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Soomaalida oo warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyay qowmiyadda Cafarta inay joojiyaan dulmiga bareerta ah iyo dhulboobka ay kula kacayaan Soomaalida gobolkaasi City. waxay inta ku dareen inay doonayaan inay laayaan shacabka Soomaaliyeed balse arrintaasi aysan aqbali doonin. maahan markii ugu horeysay oo dagaal noocan oo kala ah ku dhexmaro qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee ay wada degaan ismaamulka Itoobiya.